إذا كمان واحد هاي ستين حريات واحد هاي ستين ميل أتكون ولان كرتان وعدوى واسكر عدين إنسان مجرى وحال الرغم كهورمر مدن صالح مودي ودقة دقمة جوهر تضبية تضبات سنة كهور شنية طبعا كمي صدق طبعا كده اللي يراد إسرائيل أي تاريخ ذو إن بدن كور هاي وحنو أرنكاس كل رجليني لأن يراك سوق يبقى شيء مناسبة لوحسي شنية طبعا كمي أول وقت جوهر أورك لأن يراد قبل كشاب الله هذا حي أي أنا سوق أجاسمي مناسبة دن إياه قدوميها لأن يراد أورك الشاب الله هذا حي فرتون آدم حيفو أي كشة كيسي مالك كان إياه من مدى لأن يراد يا ريمك لو كده هارن لأن يراد قبل كشاب الله هذا حي أنا حسينه 15 ماي أو مالنتي لأن يراد ما أنت ماشي أنت أنا وحنا سوق أرسلي رك أو أنت بسكوي بدين أيقو صدقي تبان قفوضة حتى ندي ذي قميص عدوجا أيقو كفكرة أي وطن كوضة يدل كوضة يدل كوضة إن أنا لا قميصين أنا قوضة نيرا وهذا وحبرنا أو تعقل جينا استايدو يهاي أو لما أنت تد مقالة جوجا إن هذا ما أنت أن نقنضت أو محجرتها أما أنا الحساب تمين وحلا جفي عني هواية مركب وحاربنا هدي لا يرى لك النقطة كده نيرا قبل كشبه الله هذا هان waxaan leeyahay dadka dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan hambaliyo gaar ahaan dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan noo yaalo hawl adag oo ah inaan gobolkeena horumarino gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makraan ayaa u sheegay dhalinyarada Shabeellaha Dhexe inay isu imaan maalintan oo kaliya balse ay maalin walba isu yimaadaan kana shaqeeyaan horumarka gobolka hambaliyo adilana maanta waa maalintiini laakiin maalintiinu inaysan ahaan maalinta shay toban kamay aan sunni maadale inta kale aan guriyada joognaysan ahaa in fikir la yimaado la soo yimaado adduunyada dayax la gaaray iyo waxa la gaaray maskaxa laga soo dhalaaliyay maskaxda nagama maskax badno nagama aqoon badno hiba gooniyana ilaahay uma siin laakiin isku day iyo dadaal badan lagu gaaray annaga intii aan la karaba gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Hirshabeelle wasiir dowlaha wasaaradda guryeynta iyo gaadiidka Hirshabeelle iyo wasiirka tamarta iyo macdanta Hirshabeelle ayaa hadalay isu dhow oo dhiirigelin dardaaran iyo ka shaqeynta taariikhdan iyada u jeediyay dhalinyaradii munaasabada ka soo qayb galay maantay waa maalin aad anagu noogu qiimo badan waa maalinta dhalinyarada waa maalintii ummadda Soomaaliyeed ee indheedu maartay soo baxeen dhibaatadii maalintaas ay jirtay hadda way jirtaa stiil wali waa taagan tahay waxaa loo baahan dhalinyarada Soomaaliyeed 77 sano kadib waxaan xusaynaa oo maanta aan taaganahay caasimadii Hirshabeelle ee Jowhar annagoo xusaynay 15 bisha May 13 dhalinyaro waxay suurto galiyeen Soomaaliya maanta waxa waay in dawlad xur ay noqoto qaramada midoobe kursi ku leh caalamkuna waxa waay laga aqoonsan yahay annaguna waxaan rabnaa sidii la mid ah maanta dhalinyarada joogta guud ahaan Soomaaliya qaasatan Hirshabeelle maxaa la gudboon maxaa loogu baahan yahay waxay la tahay maanta anagoo fursad badan haysano hadii ay aqoon tahay hadii ay maartay dhaqaale tahay hadii ay xurnimo aan ku hadalna ay tahay maanta waxa loogu baahan yahay dhalinyarada Hirshabeelle meel walba oo joogaan inay aayahooda ka tashtaan inay maamulkooda ay garab siiyaan inay midnimadooda ay maartay ay xoog saaraan inay dalkan ayaga inay leeyihiin ay ogaadaan waliba deegaanada Hirshabeelle inay cid kale ahayn aysan ogaadaan ayaga ay leeyihiin ay ogaadaan wasiirka xogeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Hirshabeelle xildhibaan Cumar Maxamed Cumar Gaabo ayaa ugu dambeyn soo gabagabeeyay munaasabada waxaana uu u jeediyay dhalinyarada dardaaran kooban kaasi oo salka ku haya midnimo iyo wada shaqayn guud dhalinyarada waxa lagu baahan yahay inay ka faa'iideystaan waqtigooda waqtiga gaari doonta oo aan ahayn dhalinyaradaas waxaad leedahay xoog waxaad leedahay maskax waxaad leedahay aqoon ugu filan qofku waa yeelkay aqoontii hore hadda wax ma ka sheegi karo markuu duqo wuxuu leeyahay maskaxda isku dhaxyaacay laakiin qofka dhalinyarada ah wuxuu ka faa'iideysan karaa aqoontiisa iyo wax kasta dhalinyarada waxaa laga rabaa inay wadanka ay xasiliyaan dhalinyarada waxaa laga rabaa inay dugdiska wadanka ay ka shaqeeyaan ma aha in maalmaha munaasabadaha sida hore loo sheegay kaliya la soo oo la yimaado waxyaabo badan ayaa jira magaalada waxaa ku dheelaa geediyo maanta hadii la yiraahdo isbuuci hal maalin ama isbuuci laba maalin inay shaqeeyaan dhalinyarada gobolka maalinna ay shaqeeyaan dhalinyarada degmada waxaa la sameyn karaa waxyaabo badan Cabdi Shakuur Shaasha CNN Jowhar